نبدين الكاتارا وحتى هاي معذيبي نبدين الكاتارا وحتى هاي معذيبي كنارن 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 شيدانكو كنارن munaasabad ballaaran oo lagu soo afjiray colaadihii inta badan ragaadiyay deegaanka degmada Ceelafina gobolka Sanaag ayaa ka qabsoontay degmada Ceelafina gobolka Sanaag waxaana ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland boqorro salaadiin cuqaal ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horreyn waxa halkaas laga akhriyay qodobada heshiiska dhex maray labadaasi beelood dhanka kale waxa halkaas ka hadlay salaadiin cuqaal waayeel boqorro oo ka xogogaal warramay ahmiyadda nabadgelyadu leedahay soo dhaweeyay heshiisyada nabadeed ee beelaha degmada Ceelafina halkaas ku gaareen qodobka koowaad waxa weeyaan iscafin iyo toobadkeen maadaama colaadda labada beelood dhex martay ay ahayd mid ku salaysan qabiil shareecada islaamkuna ay u taqaano fitno iyo xaaraan sida ay cadeeyeen kitaabka ilaahay iyo xadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam natiijadooduna ay tahay ifkana caqiibo xumo aakhirana cadho ilaahay iyo cadaab waxay labada beelood go'aansadeen kow in ilaahay loo toobad keeno qof beelbeen iyo guud ahaanba iyo in laga murugoodo dhiiggii la daadiyey cirdigii la xalaashaday rixim goysnimadii iyo dhammaanba dunuubtii fitnada ka dhalatay iyo in lagu bedelo wanaag qodobka labaad waxaa laga qaatay cafis caam ah dhammaanba wixii dhib ah ee soo kala gaaray labada beelood ee walaalaha ah muddadii ay colaadu socotay qodobka saddexaad waxaa lagaga heshiiyey dhammaan dadkii ku kala dhintay labada beelood in mag lagu kala qaato dhaawacyadiina la xaqdo qodobka aan akhriyay waa qodobkii koowaad oo 3 faqradood ka kooban qodobka labaad ee heshiiska waa nabadgelyada iyo wada noolaanshaha waxay labada beelood ku heshiiyeen kow in nabadgelyo buuxda iyo wada noolaansho dhammaystiran oo la mid ah sidii ay awal ahaan jireen bohooyay darays laba qofkii ama ciddii nabadda jabisa ee wax u dilo bareed camdi isagay ku gaar tahay gacani waa nin lowgoodo waana loo dilayaa waxaana gacan ku dhiiglahaas ama gudhiiglayaasha go'aankooda iska leh weliyudamka qofkii la dilay saddex qofkii ama ciddii ku kaca wax nabadda waxyeelaya sida inuu ku hanjabo dil xabad rida jidgooyo sameeya ku kaca kicin iyo muusanno u beelaysan ama wax kasta oo xaalad abuur ah af iyo adinba sharciga ayaa la horgeynayaa afar in ay reeban tahay in laga falceliyo dil uu qof geystay sifo shakhsi ah ama koox ahaan haddii ay dhacdana qofkaas ama kooxdaa ka falceliyey waa dembiilayaal la mid ah ciddii falka hore geysatay falka ay geysteen dembigiisa ayaana lagu qaadayaa shan cid kasta oo dil geysata ama nabadgelyo darro ku kacda waxaa soo qabashadeeda mas-uulka ah beesha uu ka dhashay iyo dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyagaana lagala xisaabtamayaa inay sharciga hor keenaan qodobka lixaad cid kasta oo dhib geysata oo baxsata waxaa loo qabanayaa ehelkiisa iyo qoyskiisa dhammaantood oo ay ugu horeeyaan aabihii hooyadii xaaskiisa ama xaasaskiisa caruurtiisa iyo ciddii kale looga maarmi waayo sidoo kalena waxay dawladdu la wareegaysaa oo ay xanibaysaa hantidiisa iyo hantidooda qodobka toddobaad cid kasta oo qarisa taageerta ama difaacda dembiile nabadda jabiyey waa la dembi sharcigaana la horgeynayaa sideed waxa reeban in hub lala dhex maro magaalooyinka iyo goobaha la isugu yimaado ee caamka ah sida magaalooyinka tuulooyinka iyo ceelasha sagaal ciidanka dawladdu waxay u fasaxan yihiin inay tallaabo sharciga ka waafaqsan ka qaadaan hubkana ay kala wareegaan cid kasta oo hub la dhex marta magaalooyinka iyo goobaha la isugu yimaado ee caamka ah hubka lala wareegana aan ciidanka lagaga daba tagin toban in cid kasta oo ku kacdo dacaayad ama propaganda ka dhan ah deegaanka iyo wada noolaanshaha labada beelood
meel looga soo wada jeesto tallaabo sharciga waafaqsanna laga qaado. 11 howlgelinta guddiyo nabadgelyo oo isku dhaf ah oo tiradoodu dhan tahay 40 xubnood oo ka kala howlgala deegaanka Ceelafweyn iyo Dararweyne iyo nawaaxigooda degmooyinka Ceelafweyn iyo Dararweyne iyo nawaaxigooda oo wada shaqayn toos ah la yeelan doona ciidamada nabadgelyada maamulka gobolka iyo maamulka degmooyinka. 12 waxay labada beelood ugu baaqayaan beelaha kale ee degan deegaanka Ceelafweyn cafis nabad iyo wada noolaansho. qodobka 13aad ugu dambeeya labada beelood waxay isla qaateen in wixii dhib ah ee beelaha kale ee deegaanka ah ka dhex dhaca ay ka ahaadaan wanaagna ay kaga shaqeeyaan isla markaana aanay ka gelin wax hiil ah. hadalkayga murtidiisu wuxuu ku dhammaa warqadii la akhriyay iyo go'aamadooda waanu isla qaadanay ballan ilaahay iyo wacadna aanu ku galnay inaanu fulino sidaa u fulino ciddii ka hor timaada annagoo isku mid ah oo aan reeraysnayn cid kastana waxaan u sheegaynaa maanta oo meelaha ka mid ah go'aankaa ciddii ka hor timaada ilaahay hortiisaanu taaganahay siday yihiin baanu u fulinaynaa waana ballan qaado. annagu labada beelood ee meesha ku wada hadlayay dhibtuna ay ka bilaabatay sida odayaashii sheegeen waxaanu isla qaadanay cafis cid kastoo beelaha ka mid ahayd oo wax dishay ama dhib geysatay cafis baanu ku dhammaynay. maanta beej cusub ayaa noo furan nin waliba inuu ka faa'iidaystaa. aasaskiina waa ku kala qaadanay magihiina jifiyihiina waanu ka ballannay iyo magihiiba wixii wax gaadheen waxla wixii khasaare ee meesha yaallay waanu tuuray. xukuumaddayada xalay waanu la shiray waa yeelkayga qayb ka midi wixii aanu xukuumadda ka rabnay dowladda hoos baa wax loogu sheegaaye hoos baanu wax ugu sheegnay iyada xalay dowladda wixii aanu ka tabanaynay ama aanu doonayna wax nagala qabato xalaanu dhammaysanay wayna noo ballan qaadeen si fiican inay u fuliyaan. halkaa laga yeedhiyey maantooda sidaa ay yihiin baanu u qaadanay. dadkay maanta halkaa jooga hadday wasiirada yihiin hadday salaadiin tahay hadday madaxda tahay waxaynu wala joogaan waa marti sharaf iyo inay markhaati ka noqdaan nabadda aanu xidhnay. markaa waa noogu ducaynaysaan nabaddaasina waxaan filayaa maanta nin kasta oo maanta reerka ahi wuxuu aaminsan yahay taasi inay tahay nabaddii u dambaysay ee halkaa ku xidhanta. go'aamada horta la akhriyay waa go'aamada lagu soo qoran markii hore go'aamada la qoys jiray noo dhiibsan jiray go'aamada ku dhama haddaan go'aamada iska yar urka ka diidan baa go'aamada la dhiibsan kuwan maanta la soo qoray anaga soo qoranay annagana dhaqan gelinayna dawladda waxaan ku codsanaa wixii aan markaa ka dacwoonay ama dhalaa markaa ka codsanay naga qabto deena naga qabtaan. labada qoys nabadda tan idibbilay waxa weeye labadii qoys markii horena colaadu ay ka soo bilaabantay falillahi alxamd. maanta meel wanaagsan bay joogtaa nabad baa la qaatay. maanta waxa weeye waxaanu aad u soo dhawaynaynaa oo runtii wax lagu farxo ah nabadgelyada ay labada reer ee maanta Bohoy iyo Darays ay isla gaareen ee ay halkaan looga akhriyeen markhaati baan ku ilaahna waa ka markhaati. waxaan leeyahay markaa ilaaliya oo dar ilaahay ilaahna weynaad waayo wax walba nabadgelyada ku xigay waa halkay ka soo bilaabantay rabshadu cid walba waa gaadhay meel walba waa gaadhay maanta haddaan labadii raasiis u timaadeen oo tiyaadeen nabad baanu gaadhnay waa idinku soo dhaweynaya. anigoo magacooda ku hadlayo waxaan la qaadanay oo la qaban doonaa nabadgelyada ay keeneen. waxba badin maayo waa soo dhaweynaynaa waa ugu ducaynaynaa allaha sharfo insha allah waxaan jiraynaa ilaahay sharfo oo ilaahay nala qabto. way ka bedelan tahay maalintii hore ee halkan lagu qabtay xafidka waan joogay werwer badan bay lahayd taaso tanna farxad badan bay leedahay. allah inoo taamiyado mahadban yaarayahay baan ka rajaynaya ilaahu nabadda itaalkayagu waan og tahay annagu itaalkayagu waa intaa hadeed la jiro nabadii anagu intii itaalkayaga waa nagaa dhalilay
adkaynta iyo xoojinta iyo fududayntaba adaa gacanta ku hayee inay u taba isu kacyo raaciyo loo fudaydi oo loo adkay nabadda waxaanu salaamaynaa dowladda iyada sharafta badan wasiirada ka soo qayb galay iyo madaxweynaha soo diray intaba waa salaamaynaa waxaanu idinku salaamaynaa waa annagaa salaanta idiin horraysiinay maxaa tolow ay ku kasbadeen salaanta aan ugu horraysiinay waxaanu ugu horraysiinay ku kasbadeen waxa weeye waxaanaan haynba haysaan daydi allahu akbar waxaanaan haynba haysaan waa maxay xoolihiina ka dhaxayey baa haysaa xooggiiba aynula haysaa dee annagu dad taabiciinoo idindaba joogtaanu nahay xoolihiina ma hayno xooggiina ma hayno labadaba idinkaanu hayo waxaanu leenahay waa ku shaqaysaan xoogga iyo xoolahaba waa lagu ilaalisaa laakiin waxa weeye waxa eega dhaca wixii aanu qaban karayno nagu xukuma ama noo sheega war waxa naga tan weyna idinka idiin yaallo waa la gaadhaa warqad qurux badan waa la qoraa go'aamo qurux badanna waa la soo saaraa waxaan leeyahay labada beelood marka u horayso sidaa gaarka arrinta uga dhigateen ee quruxdaa u gaadeen waxaan idin leeyahay oo maxay layidhi ku magaranaysaa inaydan kala harin inaad meel kasta oo xuqasha jirto ama fiijiro go'aanada ciddii ka hor timaadana sidaa ku ballan qaadeen maxayda idinkoo midaysan maxayda had iyo jeeraale ka hor timaadaan oo ka midowdaan oo nabadda aad dhiirigelisaan waxaan intaa ku darayaa waxa weeye magaaladan ama dalkanaynu joogno ragga halka fadhiya xukuumaddu waa u xogagaal baa tihi horena waa u timaadeen waxqabadna waa la idiin soo jeediyo waa dhab weeye midalba inteedaa la sheegaa kamaydaan fara la-ayn xidalka raggiidii hore joogay iyo kuwii dhammaanta joogaba marka xukuumad laga hadlay laakiin waxa meesha taal waxa weeye meeshan waa ogtiina wax culus baa ka dhacay waa la barakacay imika jiif xaafidku markuu hadlaya wuxuu yidhi magaaladu waa madhantay dee magaalada dadkii qaxooti bay ku maqan yihin dhammaan sidii caalamka loo barakici jiray bay u barakaceen iskuulladii iyo tacliintii iyo wax allaale wixii bulsha ku noolaan jirtay waa baabaaday halkaa waxaan leeyahay magaha iyo arrimaha anigu waxaan qabaa labada iyada beelood ee waaweyn baa idinka dabooli doona laakiin idinka dawladda waxaan leeyahay waxaa laydinka baahan yahay inaad magaalada dib u dejinteedii iyo dib u hagaajinteedii hadday iskuul tahay iyo hadday adeeg kale tahayba magaalada inaad dadkii u barakacay ee colaadda 4 sannadood baa barakiciseen inay idinku qorshe iyo nidaam u samaysaan sidii dadkii loo soo dejin lahaa iyo sidii wax loogu qaban lahaa inaad ballankeeda qaadaan nabaddu waa waxaynu noloshiiba ka mid qolada reer ceelafweyn waxaan sheegayaa dadka ama eriyada ku dhow waxaa la yidhahdaa 4 shay qofka haddii laga helo 4 shay haddii laga helo dadka waa isku calo koow inay yihiin dad isku dhaqana laba inay yihiin dad isku diina 3 inay yihiin dad isku afa inay isku